اسكول كان ديغاتو انا جو دبكي سو مارين اسكول كان على صعده هدنا aan ogahay waxay u baahan yihiin aniga waxaan rajeynaa anoo wakiilka international ninka kaliya ma gobolka banaadir ka shaqeynaa kaaman badan gacanta ku haynaa ilaa 10 dugsi quraana gacanta ku haynaa wadno idinkan waxaa tiin kuwii ugu horeeyay aan gacanta ku qabaa isla markaasna ninkii soo istaagay markii dhibaatada aan ku jirnay oo gacanta iga siiyay xilwaan Shariif Maxamed Siidi ardadan oo dhan meeshan foundation oo Muqdisho ah iyo Shariif Qoloteen Foundation aan gudoomiye ka ahay waxaan rajeynayaa waxaan ka qaban karnaa u qabano aniga iyo anoo kaashanayo saaxiibkeygi ama saaxiibka labadeeda saaxiib dhalxa iyo Shariif Maxamed Siidi iyo inta kale banaanka jirto waxaa loo qabanayaa ardaydan in loo qabto ayaan rajeynayaa waana idin qabanaynaa idinka kaliya ma gobolka banaadir ka shaqeynaa kaaman badan gacanta ku haynaa ilaa 10 dugsi quraana gacanta ku haynaa wadno idinkan waxaa tiin kuwii ugu horeeyay aan gacanta ku qaban ilaa haddana gacanta ku hayno وانا إذا قاعد إلا هيرك اللي جاري واحد برشة إذا كانوا عنده بلغ قادين أرضي في عن وهو إحنا قد واحد برشة وبري كل يعني أنا بدل لها ودل كان دين تين والله إلى إلهي تكريمه يا رجال يا أنا هذا في كل دارين أنا جعل هذا إنهم سود حلوان كقرن كأ إسلام مركزنا نمكي سو استاجا مركز دباتو أم كجرنا وقعدت تجسي حلوان شريف محمد سيدي أبداً دان ميشان إكتسفين أنا ما بقولين إن السكول كده حالها أنا أيوة تحت أنت أردنا أي واحد برتان لكن مكاني ما دو قرار كان في أن أذكر دواتهم خطوط تدم خطوط وحا شرف إيه إن أني شيء سكول كان أو حنا مولينا مدة 2 سنة أي جبتو بدال فربنا مكان أقلني ما أنت قول أي تقول شيء وين ayaan gaarnay iskoolkan sida asxaabtee Shariif Qoloteen uu yiri waa meel masaajid waxa way toorteena waxay gaartay inaan meel masaajid iskool aan ka furno inkastoo 7 sano iyo 8 sano ay maroono guul waa ka gaarnay asagoo iskoolka maxaa hoose dhace maanta dugsiga sare oo la gaari waxaan rabaa in sheega إني أرددي كسر بحدونه دكسية سريع وقت الأول حلو فرع دكسية فرسمة دكسية أولو برندونه فرسمه فرانتا كمبيوتر وحنا لو برندونه سيدا كلمة سيجا لو قالوا أما لو حنانيو جعنتا ينكو هينا وقت الأول إن شاء الله وعلى بالله بدونه تعليمتا وشيء هوين lateen ee dhiganaysa runtii mas'uuliyiinta u dhabar adeegtay waxbarashada ardaydaasi inta la eg taariikhda ay bilaabeen aan ognahay 8 sano hadda ay ka soo wareegtay intii maalgelisay oo dadaalka qayb weyn ka qaadatay oo maanta xildhibaanka saaxiibkeena ah isla markaana gudoomiyaha SNU ah oo hadda samafale ku caan baxay xildhibaan Shariif Maxamed Siidi oo Ilaahay ajir iyo xasanaad ka siiyo aan leenahay iyo walaalkeena xildhibaan anaga ex ma dhahayno maxaa yeelay ex waxa waaye dadka waxay u noqotay ninka hadii la yiraahdo shalay xildhibaan ah wixii mas'uuliyad saarneed intuu iska dhigo ayuu suuqiisa iska galaa wuxuu leeyahay aniga maanta xildhibaan ma ihi laakiin xildhibaanada kuwa hadda jooga iyo kuwii hore u joogay ba Caamir waa nin ka dheereeya dadaalkiisa inuu laba laabo maana aan waxba ku haynin maartay haday ka maqan tahay marka xildhibaanka dhabta kaas waaye ninka mas'uuliyadda garanayo inaysan ahayn kursi wax ku xiran laakiin ninka dadkiisa u taagan iska xil saara ummadiisa wax u qabta dalkiisa wax u qabta aanan xil ku shaqeynayn ama aanan waxa oo markaasi asaga uu ku anooraadsanayo aanan ku shaqeynayn laakiin liwaji Ilaahay iyo qarankiisa iyo ummadiisa dadkiisa inuu wax u qabto ninka u taagan ninkaasa xilka in lagu magacaabo sharafteeda mudan ninkaasana marka mudan in la yiraahdo xildhibaanka joogtada ah maanta in loogu yeero marka anaga waxaan ex maliina xildhibaanka joogtada aan leenahay Caamir magarta marka runtii waana uga mahadcelinaynaa asaga iyo inta maanta degmada oo hadda hadii aanan iyadana garab istaagin maanta masaajid dushiisa ayaa iskoolka laga furay baytullaahi waaye alxamdulillah waxa hadda kulli laga wada waa un cilmi
waxun oo munkar hadduu ahaan lahaa dhibbay keeni lahayd laakiin masaajidka laftirkiisa meeshii ilaahay subxaanahu wa tacaala gurigiisii ahaa ee wixii laysku farayay ee ay ka mid ahayd dalabulcilmi ayay ka mid tahay marka cilmigii oo la raadiyo wax la barto maadaama diintii ayada ay dhiirigelinayso masaajidkana sidaasay labadooda mudaabiq iskugu noqdeeno haddii meel wax kale lagu baro la waayo masaajidkii xataa ardaydii wax lagu baro intay xumaan koolle iyo dhibaato iyo mashaakil suuqyada maarta intay la taagnaan lahaayeen ama mukhaadaraad iyo wax dafid iyo ama iyagoo agoomana aanan heli karin luqmatal cayshi maarta ay u bareeri lahayn marka degmadii ayadana gacan ku siisay oo hadda uu nagala joogo horeyna maanta ninkii babaay ahaa saaxiibkeenna ayaan wax badan wada joogi jirnay ninkaan saaxiibkeenna ee gareen iyo taliyaha nabad sugidana maanta ayagana sidaasaan dareemaynaa warbixinta uu dhiibaya ayaad ka dareemaysaa nin xuquuqaal u ah inuu la soo shaqeeyay aad ka dareemaysid macallimiinta xiriiriyaha intaba kulli waxaan idinkaga mahad celinaynaa ilaahay baase maartay ammaan idin yeelay oo bani aadan ugama baahnidin ninka agoon u gargaara kaalmeeya waxbara rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi ana wa kaafilu yatiim ka haatayni fil janna aniga iyo ninkii agoon kafaala qaada labadeena jannada saasaan ugu simanayno rasuulka labadiis farood dusaa yidhi marka nin rasuulka asiga isla soo simay nin bani aadan oo asiga dhihi karo adiga iga dambeey maba jiraba markatay ama waa kula garab simanahay ilaahay baa qiimo u yeelay qadarina siiyey dadka agoonta ah dadkii u gacan furay oo maartay ama waxbaray ama dhaqaale ku taageeray ama كلمات في عن حتى أو ما أعطي قول معروف صدقة وحلو قبت أقوانتان حتى سو جيري مركا وحواي يوحان مرقو لي بقى ندير قلنا هنا سلا سو كلا الدولة تطبقن باي مدبل الشيء هالكان ومدحوينه وكميدي هاي إن لا يماروا في عنته إلا صوب بغضه لكن نشاعر هو يردكور لقد جيتنا في دهر مرة فني ولا تجعلها بيضة الديكي يا أخي ولي قال هالمرة نوت بدورنيو markii kadibna kuma aan arkin waxaan rajaynaynaa inaad soo badisid imaatinkaaga aanay noqonin diiqii hal mar ukunta dhalay ma kartay inay timaado madaxda maalinta ay fiiriso ilmaha agoonka madaxa loo salsalaa markii laga ooyeen laga taga maaha waa la yimid maxaa ka dambeeyay waa inay noqdaan wax ay ku farxaan oo ayaga waxay tar u noqoto oo la yiraahdo maanta madaxdii hebel tagay wasiir hebel tagay prime minister tagay ardaydii waxa loo qabtay faraj baa ilaahay u furay wax qabadkaasi laakiin in la dhageysto la iska socdo waa laga qiimo badan yahay marka taa waxaa dhaanta maanta sidaad adinka baad sheegteen inaad ku kalsoonaataan shariif maxamed siidi iyo caamir sida uu xiriiriyaha uu sheegay iyo guddoonkiini degmada iyo nabadgelyadiini dadkii idin qaabilsanaa iyo intii kale oo idinka diyaarka waa inay wax idin qabato ilaahay baa faray nin kastoo muslim ah meel kastuu joogo inuu agoonto wax uu qabto oo gacan siiyo ama gudaha joogo ama dibadda joogo dawladda kaliya ha ka sugina nin kastoo muslim ah oo idin naxayo ayaa insha Allah aad garab ka heli doontaan sida Shariif Siidi oo kale taasna waxa weeye waxaan ku bogaadinayaa ama aan ku dhiirgelinayaa dhalinyarada bahda saxaafadda oo runtii kaalin weyn ay ciyaarisan inay mar waliba ay soo bandhigto duruufaha adag ee haysta agoonta Soomaaliyeed ilmaha dibadaha ku dayacan banaanka taagan si intii ayagana muxsiniina waxay u qabato ayna u ogaadaan xaaladooda taana marka waa soo jeedinayaa insha Allah marka ilaahay idinkiisa mar kale waxaan salaamayaa guud ahaan ardayda gabdhaha wiilasha guud ahaan bahda saxaafadda أنس محمود جولاني ليلى محمود عدو دكتور سعيد علي علمي سعيد علي علمي
kan waa barooba sidaad ogtihiin dadka markii wax la siiyo isla markii waa la waynaa alaabta tan hadda barooba waa 2 bilood waa fiirineynaa haddii hooshiina oo ay si fiican u soo baxdo waxaan keenaynaa shaqaaman kale iyo qalab kale oo dadka wax lagu baro waxaan ku tala jirnaa in dadka raashin sida loo kariyo in la baro harqaaman kaligiis ma aha farsamayaal kale geedaha sida loo qoro dhagaxa sida loo qoro adiga hool fara badan aan ku dhex jirnaa dugsi farsamo inaan furno dugsi kalluumaysi inaan furno intaas waa ku tala jirnaa wabilaahi tawfiiq hadal intii gudoomiyaha uu yiri waaye odayaasha kulli maanta waxaa jooga banaadiri dadkii rukniga ahaay hadal badan ma furna banaadiri waa la yaqaan farshaxan adoogiisa meeshuu ka soo jeeday waaye jad iyo dhaxal ay u leeyihiin waxaan ognahay xamar markii la isweydiiyay la yiraahdo koofiyadan yaa ku toli aniga ama xamar weyn la igu soo tali ama shangaani la igu soo tali u dhijir qofka dharkii fiican ee qurux badan ee tolmo fiican ee saaran inta lagu soo tala dili jiray waxa la dhigi jiray hoosheega la igu soo tali xamar weyn uu ku yaala ama waxa la dhigi jiray ma aragtay biyo roman ka soo gatay ma gartay waxa waay meeshan haddii xataa ilmaha yar yar le ayaga wax macmacaan oo ay cunaan la arko wariya shushumooga iyo bajiga intee ka keen xamar weyn ama shingaani ka soo gatay la dhigi jiray horta marka maanta shushumooga iyo caana baraawi iyo dhangalowgi iyo miitaaydi iyo kulli iyo ma gartay shida qumbadii markii la waayay dad badana waxa waay vitamin laan ku dhacday ma gartay dadkii korkooda waxaas u bartay maanta waxa waay waa ka muuqataa marka shariifka inuu yiraahdo cunto kariskan soo celinayna meesha waxa ku jiro bajiga iyo dad bun amal waaya jiro bajiga laga arko asas oo qeeynin marka insha Allah maanta hadii darintii daabacaadii wixii aan naqiinay barkimihii wixii foodara ee maanta kulli meeshii lagu sameyn jiray meeshii timaha gabdhaha lagu daban jiray waxaas oo dhan kulli meeshii saldhigay oo hayt hadii maanta aad soo nooleysaan waxay taas astaan u tahay inay xamar soo noolaatay inay dawladnimadii soo noolaatay inay maanta noloshii dib u soo noqotay marka maxaa yeelay ilbaxnimadii ayaa zuushay wax waliba zuulay wadanka wax waliba waa burbureen dhaqankiyaa burburay taariikhdiyaa burburtay ilbaxnimadii burburtay cilmigaa burburay makasino marka dadka waxay u malaynayaan guri inuu dumay darbi la nas jabay makasino anaga meel xunaan ka jabnay ma gartay oo intaas oo dhan ay ahayd intii Soomaaliya oo ayada ay ku faani jirtay marka insha Allah shariif siidi odayaasha ogaay ma gartay Allah yacisakum waxa waaye gabdhaheennii sharafta lahaa ma garatay maartay oo gambaalada makasino oo laga soo gaari ma garatay maartay marka insha Allah waxaan rajaynaynaa waxaas oo dhan in maartay dib loo soo nooleeyo si dadka ay u dareemaan in dalka